daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo aad ugu barateen barnaamijyo aan ku qaadaa dhigno taariikhda aktarada caanka ah ee dalkaasi Hindiya kana tirsan shirkadda filimada ee Bollywoodka. barnaamijka caawa waxaynu ku falanqayn doonaa aktarka caanka ah ee John Abraham. haddaynu guda galno barnaamijka, John Abraham waxa uu dhashay 17 bishii December 1972. waxa uu ku dhashay tuulada Aluva Kochi ee ka tirsan gobolka Kerala ee dalkaasi Hindiya. dhererkiisu waa 1.82. John Abraham waxaa dhalay aabba ka soo jeeda Malayali iyo hooyo ka soo jeeda Zoristan. aabihii waxa uu ka soo jeedaa deegaan ahaan Aluva. magaciisa dhabta ah waxaa la yiraahdaa Farxaan, halka aabihiis uu ahaa baadari ka shaqeeya kaniisad Kiristaana oo ay lahaayeen dadka Siiriyaanka ah ee deganaa dalkaasi Hindiya. sidaa daraaddeedna magacii Farxaan ahaa waa uu ka bedelay, waxa uuna u bixiyey magaca John oo haatan loo yaqaano. John Abraham waxaa la dhashay gabadha magaceedana waxaa la yiraahdaa Susie. waxaa kaloo ka yar wiil ay walaalo yihiin, wiilkana waxaa la yiraahdaa Alan Abraham. waxa uu wax ka bartay Mumbai Scottish School ee magaalada Bombay. waxa uu shahaadada dhaqaalaha ka qaatay Jai Hindi College. sidoo kale wuxuu shahaadada MBA ka qaatay Mumbai Education Trust. haddaan intaas uga gudbo waxbarashadiisii iyo qoyskiisii, waxaan ku xijin doonaa intuusan filin jiritaanka ku soo biirin John Abraham maxay ahayd shaqada uu qaban jiray. John Abraham waxa uu ka soo dhex muuqday hees Punjabi ah oo magaceeda la yiraahdo Sarni oo uu qaaday fanaanka Jazzy B. kadib markii uu ku biiray ragga modelka ka shaqeeya. waxa uu ka shaqeeyay shirkado badan, waxaana ka mid ahaa shirkadaha xayisiinta uu sameyn jiray Time and Space Entertainment Prohibition Ltd. inkastoo kambanigaasi waayihii dambe loo xiray dhaqaale xumo soo wajahday, John Abraham waxa uu ku biiray kambaniga Nexus 1999. waxa uu kaloo ku biiray Glad Rags Manhunting Contest. kadibna waxaa shirkadaasi ay u dirtay dalka Philippines si uu uga qayb galo tartan caalami ah oo ka dhacay waddankaasi oo xagga tartanka ragga modelka xayeysiiya. waxa uu tartankaasi ka galay kaalinta labaad. John Abraham kadib waxa uu ka shaqeeyay isagoo oo markaasi xayeysiimo u sameynayay magaalooyinka waaweyn ee Hong Kong, magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska, New York ee dalkaasi Mareykanka. waxa uu kaloo ka soo dhex muuqday John Abraham muuqaalo badan oo shirkadaha xayeysiinta sameeya ay iska lahaayeen. John Abraham waxa uu muuqaalo badan oo heesa ayuu wax ka sameeyay, waxaana ka mid ahaa Bankay Udas, Hani Rajhanis iyo Babul Sabriya. heesahaas waxa uu u sameeyay si uu uga soo bandhigo qaabjiliinkiisa heerka uu gaarsiisan yahay iyo inuu caalamul aflaam wax ka tuso qaabjiliinka uu markaasi ku soo bandhigay heesaha uu ka ahaa qaybaha. John Abraham waxa uu kaloo soo bartay intii uu ku jiray xayeysiinta iyo jilitaanka heesaha. waxa uu galay Kishora Namit Kapoor Acting Laboratory, halkaasi oo uu ku dhamaystay xirfadiisii barashada jiliinka. intaas waxaa ku eg John Abraham iyo shaqooyinkii uu qaban jiray jiliinka filimada ka hor inta uusan ku soo biirin. haddaba su'aasha meesha taallaa waxay tahay, goormuu ku soo biiray John Abraham Bollywoodka? John Abraham sanadkii 2003 waxa uu sameeyay filimkiisii koowaad, waxaana filimkaas la yiraahdaa Jismi. waxaa filimka la jilaysay atrishada Bibasha Basu iyo Taran Adarash. qiimeynta filimkaasi box office-ka waxay ahayd mid iska dhexdhexaad ah. isla sanadkaas 2003 waxa uu ku xijiyay filimkiisii labaad ee Saya, waxaana u dhiibay Anurag Basu. waxa uu ahaa filim horror iyo romance ah. waxaa la jishay Tara Sharma. qiimeynta box office-ka Saya ma ahayn mid guuleystay. sanadku markuu ahaa 2004 waxa uu sameeyay filimkii Bab oo ay u dhiibtay directorada caanka ah ee Pooja Bath. inkastoo uusan macno weyn ka keenin box office-ka, isla sanadkii 2004 waxa kaloo sameeyay Akbar filimka la yiraahdo iyo Laker Forbidden Lines Madosh oo intaba aanan noqon kuwa ku guuleysta markii qiimeyn lagu sameeyay box office-ka oo qiimeeya dakhliga ka soo xarooday filimaanta dalkaasi India.
daawadayaal weli waxaynu bartanka ugu jirnaa filimaantii uu sameeyey John Abraham isla sanadkii 2004 John Abraham oo sameeyey filimo badan waxa uu ka badbaaday oo masraxa jiliinka ku soo celiyay waa filimkii Doom waxa filimka director ka ahaa Sanjay Gaddu soo saaristana waxa iska lahaa shirkadda filimaanta ee Yash Raj Films waxa filimkaas la jilayay Abhishek Bachchan Isha Dol Uday Chopra iyo Rimi Singh Doom waxa uu kaalinta saddexaad ka galay box office filimadii sanadkaas la sameeyay 2004 waana filimka saddexaad ee ugu dakhliga badnaa sanadkii 2004 waxa uu John Abraham filimkaasi ku qaatay abaalmarinta laadarkii ugu wanaagsanaa 2004 ee Filmfare Awardska sanadku markuu ahaa 2005 John Abraham waxa uu sameeyay filimada kala ah Elan Karam Kal Virud Water Garam Masala iyo Shikar Kal iyo Garam Masala ayaa ku guuleystay box office-ka halka Elam iyo Karam iyo Virud iyo Water ay ahaayeen kuwa aan guuleysan haddaynu intaa kaga gudubno sanadkii 2005 2006 John Abraham waxa uu sameeyay filimada kala ah Zinda Kabi Alvada na Kevin Taxi number 9211 iyo Babul iyo Kabul Express John Abraham sanadkii 2006 waxa guuleystay filimada uu sameeyay Zinda oo uu ku guuleystay laadarkii ugu fiicnaa oo uu ku helay abaalmarinta Filmfare Awardska John Abraham sanadkii markuu ahaa 2007 waxa uu soo saaray filim kale oo la yiraahdo magaciisa No Smoking iyo filimka kale ee la yiraahdo Dandana Dangol No Smoking waxa uu ahaa midaan ku guuleysan Indian box office-ka Dandana Dangol waa uu ka fiicnaa marka loo eego qaabka uu u jilay iyo muuqaal hor leh oo uu filimkaasi ku sameeyay isaga oo timaha oo dhan soo jartay iyo heestii filimkaas ku jirtay ee magaceedu ahaa Ramana oo ay wada qaadeen John Abraham iyo saaxiibadiisii hore ee Bibasha Bazu heestan oo noqotay hees hiid ah ama heesi sanadkaas ugu wanaagsanayd sanadku markuu ahaa 2008 John Abraham waxa uu sameeyay hal filim waxayna ay wada jileen Abhishek Bachchan iyo Priyanka Chopra waana filimka Dostana 2009 John Abraham waxa uu sameeyay filimka New York waxaana filimka lahaa Yash Chopra Films sanadku markuu ahaa 2010 John Abraham waxa uu sameeyay filimkii kale ee Aashiyeen iyo filimka la yiraahdo Shota Hai Sahi oo labaduba flop garoobay 2011 waxa uu sameeyay filimkii Seven Kahon Maaf Mera Brother ki Dulham Force iyo Daisy Boys Nick Mathur sanadku markuu ahaa 2012 John Abraham waxa uu sameeyay Houseful 2 oo ahaa filim ku guuleystay xagga box office-ka ilaa sanadkaas 2012 waxa uu sameeyay filimkiisii koowaad ee isagu uu ka yahay producer waana filimka Vicky Donar waxa filimka jilaa ka ahaa Ayushman iyo Khurana Anu Kapoor iyo Yami Gautam sanadku markuu ahaa 2013 John Abraham waxa uu sameeyay filimkiisii Race to Aimi Our Main Shoot Out at Wadala filimkiisa Race to iyo Shoot Out at Wadala labadaasba waxay ahaayeen kuwa ku guuleystay dhanka box office-ka dalkaasi Hindiya Aimi Our Main mid iska dhexdhexaada ayuu ahaa John Abraham waxa uu sameeyay filimkiisii labaad ee uu producer ka yahay waxaana la yiraahdaa Madras Cafe waxa filimka director ka ahaa Shojit Sirkar sanadku markuu ahaa 2015 waxa uu sameeyay filimkii See Welcome Back John Abraham filimkaasi markii la qiimeeyay waxa uu noqday mid ku guuleystay dhanka box office-ka dakhli badanna uu ka soo xarooday sanadku markuu ahaa 2016 John Abraham filimadiisa daan wax ka taabto waxa ka mid ahaa filimkiisii Wasiir Rocky Handsome Dijum iyo Force 2 Force 2 waxa uu noqday filimada John Abraham
uu sameeyey kii ugu sarreeyey ee abid uu sameeyo, aadna waa loogu ammaanay jilliinka uu soo bandhigay John Abraham. John Abraham waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay filinkiisa Force 2, waxa uuna sheegay in Force 3 ay socoto duubistiisii, lagana yaabo inuu soo gabagaboobo dhexbartanka sanadka marka uu yahay 2017. daawadayaal, haddaan intaa kusoo afmeerno filimadii uu sameeyey John Abraham, waxaan raacin doonaa taariikh yar oo kooban. John Abraham waa mulkiilaha naadiga Indian Super League Football Team, magaceedana naadiga waxaa la yiraahdaa North East United FC. John Abraham waxaa kaloo uu leeyahay fashion line brand, shirkad la yiraahdo, magaceedana waxaa la yiraahdaa JA Clothes, taasoo soo saarta dharka jeeniska oo asaga u gaarka ah. haddaan John Abraham iyo gargaarka bini'aadanimo waxyaabihii uu ka geystay wax ka taabanno, John Abraham waxa uu halag oo lacaga dalkaasi India ugu deeqay La Vita Hospital and Research Center ee magaalada Bombay. John Abraham sidoo kale waxa uu caawimaad gaarsiiyaa hay-adda qaxootiga adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga dalkaasi Hindiya. haddaan sii wadno oo arrimaha qoyskiisa wax idinka taabanno, John Abraham samayntii filinkiisii Jismi, John Abraham waxa ay xiriir wanaagsan dhex maray atirashadii filimkaas la waday ee Bibasha Basu. xiriirka labada lamaane ayaa ahaa mid wanaagsan. saxaafadda dalkaasina waxa ay ugu wici jireen The Super Couple. xiriirkooda waxa uu soo ilaaday sanadku markuu ahaa 2011, inkastoo wax faahfaahin dheeraada aan laga haynin sababta keentay inay labada lamaane xiriirkoodu uu soo dhammaado muddo 9 sano ah kadib. John Abraham hadda waxa uu qabaa Priya Runjal. kulankoodii koowaad waxa uu ka dhacay magaalada Bombay sanadku markuu ahaa 2010, waxayna isguursadeen 3 bishii Janaayo 2014, waxayna damaashaad u aadeen magaalada Los Angeles ee dalkaasi Mareykanka. daawadayaal, intaas ayaan kusoo koobi doonaa taariikhdii John Abraham, jilaaga filimada Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. waxaanu idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban oo bahda saxafi filmisna, sidaas iyo nabadgelyo iyo is arag dambe oo xiiso leh.